fiid wanaagsan dhammaantiinba ku soo dhawaada daqiiqadaha wararka afrikada bari saacadu waa 8 fiidnimo oo gow ah qodobadan caawa idin hayo waxa kamid ah Ethiopia oo maanta mar kale ka hadashay sida ay ugu baahan tahay inay hesho bad ay isticmaasho Ethiopia waa markii afaraad oo ay ka hadlayso baahideeda marnaba maysan soo hadal qaadin sharci ahaanshaha heshiiskii Addis Ababa ka dhacay muqdisho carax xoog leh ayay dadku ka muujinayaan heshiiskii sharci darrada lagu tilmaamay ee Ethiopia ay la gashay Somaliland badenu kirna maahan iibna maahan haddii aan nahay dhalinyarada Soomaaliyeed waxaan diyaar u nahay inaan difaacano dhulkeena badeena iyo dadkeena kumanaan shacab ah ayaa maanta isu soo baxay waxa kamid ah aaba sheegay in Ethiopia horay wiilkiisa u dishay isagana diyaar u yahay difaaca dalka Soomaaliya markaan wiil ardhay oo tumsayay oo dili Ethiopia asag male gaal ma rabno sidoo kale waxaad maqli doontaan nin hore qof u dilay oo isna maanta xukun dil ay lagu fuliyay maanta oo taariikhu tahay 11 bisha koobaad 2024 waxa lagu fuliyo xukunkii qisaasta ahaa magaalada Dhuusamareeb Axmed Karaash oo 5 sano kadib wareejiyay xilka madaxweyne ku xigeenka Puntland qodobadaas iyo kuwa kaleba waad maqli doontaan aan ku bilaabay dawladda Ethiopia ayaa mar kale ku celisay baahida ay u qabto inay hesho bad ay isticmaasho 11 maalmood ayaa hadda laga joogaa markii Addis Ababa lagu saxiixday heshiis Ethiopia ay sheegtay inay Somaliland la gashay heshiiskaasi sharci darro ayay dawladda Soomaaliya ku tilmaamtay 11kii bari ee la soo dhaafayna mar walba oo mas'uuliyiinta Ethiopia ay hadlaan waxa kaliya oo ay taabanayeen waxay tahay baahida ay ku celceliyeen waa Ethiopia inay u qabaan inay helaan dhul badeed marnaba Ethiopia ma aysan soo qaadin sharci ahaanshaha dhulkaasi kamana aysan jawaabin hadalladii dawladda federaalka madaxdooda ka soo yeerayay Ethiopia sidoo kale ma aysan taabanin waxa sharciga u siinaya heshiiska ay la gashay madaxweyne Muuse Biixi Cabdi inta badan madaxda caalamku waxay garab istaageen madax banaanida iyo xuduudda dhuleed ee Jamhuuriyadda Soomaaliya Ethiopia arrinkaasi xuduudaha sharciyada iyo waliba nidaamka loo maro heshiisyada marnaba ma aysan soo hadal qaadin balse dhinaca kale shacabka Soomaalida wali waxay ka falcelinayaan iyagoo waliba cara iyo kacdoon ku daraya wixii Addis Ababa ka dhacay maanta caasimadda Muqdisho waxa gilgilay dibadbax kumanaan qof ay dhigayeen jawiga magaalada caasimadda ahna sidan ayuu ahaa dadka halkaasi ka hadlay waxa kamid ah aaba sheegay in hore Ethiopia ay u dishay wiilkiisa isagana hadda diyaar u yahay difaaca Jamhuuriyadda Soomaaliya markaan wiil ardhay oo tumsayay oo dili Ethiopia asag male gaal ma rabno Muuse Biixi tuug waay dhunqaati waay Xasan Mahmuud yo عبد البر وذاك يغسله وذاك معمول إذا معمول ويوصلوا عنك وتقابلي وقف الدفاع دفت أخرى ما هنا أتوبي أسان ماله أتان وايد أتان قرد على ما هنا أتوبي مرحمنا أتو قال مرحمنا أرسل فلسطين سلسلة قوى أرسل فلسطين يوسف بالواحد أتوبي أسان ماله من قص حمرة يا إيمان هاي أنا قد دفعني حمرة ما من قص حمرة إيمان هاي أنا قد دفعني مرحمنا من saraakiisha ciidanka ayaa dibadbixi maanta sidoo kale ka hadlay badenu kirna maahan iibna maahan haddii aan nahay dhalinyarada Soomaaliyeed waxaan diyaar u nahay inaan difaacano dhulkeena badeena iyo dadkeena inaan difaacano diyaar u nahay 600 oo sano ayaa dhulkan xeebtan iyo dadkan difaacayeen awoowayaasheen maanta anaga oo dhalinyaro ah oo intaan oo dhalinyaro oo Soomaaliya ay ku nooshahay oo la joogo qarniga 12aad 2024ka in 600 oo sano wixii ay ku taamaysay xabashada ay maanta hirgelisaa waxay nooga dhigan tahay geeri ardayda ayaa qaybtooda qaatay oo wiilkan ayaa iyagana u hadlay markii dareenkii iyo wixii oo Imaam Shaafici ka wada socdo dhammaan anaga nagu wada hadleeno oo ah in aanan badeena aan ogoleen inay iibtaay damac xumo inay naga soo xaggooda naga soo gashay insha Allah waan difaac doonaa waan u dhimo doonaa wadankiina dibadbixi maanta caasimadda gilgilay waxa halku dhig looga dhigay badeena iib ma ahan maalinba maalinta ka dambeysana waxa sii kordhaya carada kacdoonka iyo gadoodka ummadda Soomaaliyeed ay ka muujinayaan heshiiskii sharci darrada lagu tilmaamay Addis Ababa ka dhacay 1 bishii January
وهجاك دقيقة دي وركة باهنتيني فيدنمو أياد ولي داوانيسان روسا مريب وحا مانتا حكم ديلا لغو فوليي محمد عثمان أحمد وويل دالينيرا هوري بو حكم ugu dhacay waxa la sheegay inuu horay u dilay qof shacab ah intaana la tooganin wiilkan dhalinyarada ah waxa laga akhriyay goobtaasi xukunka lagu fuliyay iyo qaabkii loo gaarayba dacwad ciqaabeedkii loo haystay gacan ku dhiigle maxamed cusmaan maxamed ina caasho cabdinuur axmed 21 sano jir ah ku dhashay deegaanada deegaanka inamad oo hoostaga degmada Dhuusamareeb ee gobolka Galgaduud kaasoo xafiiska xayraantu ku soo eedeeyay inuu si bareer ah u dilay marxuum Cabdi Cali Xuseen taariikhdu markay ahayd 28 bishii 11aad 2023 abaar saacadu ay ku beegnayd kowdii iyo barkii duhurnimo falkaas oo ka dhacay deegaanka inamad ee hoostaga degmada Dhuusamareeb ee gobolka Galgaduud waxayna maxkamaddu ku xukuntay dil toogasho ah oo ah qisaastii marxuum Cabdi Cali Xuseen taariikhdu markay ahayd 2 bisha koobaad 2024 maanta oo taariikhdu tahay 11 bisha koobaad 2024 waxa lagu fuliyo xukunkii qisaasta ahaa وهجاك doorashadii Puntland kadib waxa bilaabatay xil wareejinta maanta waxa xilka ka tagay wareejiyayna wixii mas'uuliyad ah oo uu hayay Ahmed Karash oo 5 sano ee la soo dhaafay madaxweyne ku-xigeenka ah Puntland Ilyas Lugator oo hadda la doortay ayaa xilka kala wareegay inkastoo wali su'aal la gelinayo halka uu ku dambeeyay mowqifkii deegaanada SSC Qaatumo hogaankooda maamulka iyo hogaanka dhaqankaba ay horay u gaareen oo ah inaysan maamul ahaan ka tirsaneen dowlad goboleedka Puntland xil wareejinta maanta sidan ayay u dhacday waxaan farxadii ah madaxweyne ku-xigeenka cusub oo wasiir ahaado maalinta aanu magacoonay oo ila aqbalay madaxweynuhu sidoo ayaan tirood ka sheegay maxay tahay markii uu khudbadiisa akhriyay baac mushtari baan haabo nin baac mushtari oo dibadda ka yimid waxa aanu magacoonay oo aan magacaabay madaxweynuhuna ayaa buruuf garay inuu wasiir noqdo ma uu khasaarayn marka waxay farxad tahay maanta marihii aanu beeray inuu ibedelay iyana uu farxad waxaan aad ugu faraxsanahay maanta meesha uu xilka ku wareejinayaana meel uu ku sharfan yahay oday Puntland yahay 15 sano 20 sano u dambeeyana uu soo shaqeynayay la sol oo taab badan hore galiyayna uu garwadeen ka noqday inay maanta xor tahay oo 25 August ay ku soo gabagabowday taabkii halka la galiyay oo dawlad ahaan iyo tol ahaan iyo isagoo uu leeyahay budiga u ahaa aan gacan yarana uga ahaa laba garab iska kaashanayaan aanu ahayn runtii waxyaabo badan aan gacan yaro uga ahaa madaxweyne nagama tagin waxaad noqon doontaa madaxweyne gees fadhi u ah dawladdan iyo reer Puntland aniga qofaan waxaad noqon doontaa role model waxaad noqon doontaa oday aan ka tala qaato weli waxaad naga daawanaysaan barnaamijkeena daqiiqadaha wararka magaalada Baydhabo maanta waxa ka dhacay amar cusub oo booliska koonfur galbeed ay bixinayaan waxa la faray amarkan ciidanka booliska iyagoo looga digay hab dhaqanka shacabka ay ciidanka kula dhaqmaan wal oo booliiskan Baydhabo dadye isi wal ma ojiidin geesiski gudaha ka jartaana laakiin gudaha ka jaro booliiska bulshada walaayeen hay og on reer Baydhabo geek way banin hayn amaanan hayan haddii una ciidanka booliiska koonfur galbeed dadka shacabka ku nool magaalada Baydhabo ilaahay ammaan jid sugahay ammaan jid dadka shaqeeya isigu booliisku rooraay mala booliisku walan rooraay laakiin lan humo Niger way balafay taliyaalka ha gudbiyano sheenan aadis bootiyan marka iyada ka baasantiin shaqada geek umata haynana dhaarnayn horta ha ka baneena meedaray si hoojineen dadka baadiyada madiroog lanka beedayka ilaa ka hoola la jaa oo beedayka hayna hoola ilaaliyow kan hoola ilaaliya la kiyoome meelan kiyoome horan dadaalow kan beedayka ma la hadlaw ma wala markaas in isla hadlaw isi shaqeeya ay tan hoblan shaqeyn ma la hadal fadneeb
mana shaqada hal sii lama jibaaro وهجاك قبر دهر أن أدنو مقالة قبر دهر أي تاريخي عاصمة قبل كقرحي ما أنت ودأت أقرح بدن بالإعداد أنا ضدك سوجيدتي أيا لا دهفري مدحوينا مصطفى محمد عمر دبت أيا هالكاسي تشوغا أو جد كان عصب إيا كلا وريقن برتماها مقالة كويا لا هالكاسي كو دهفري برنامج كيني دقيقة لها وركا عاوة انت سيهينو تشوغو باهنتن توسكا واحد فرسميي محمد ألفيس عبد الفتاح عبد الله أبو صوصاري إذن كانوا وادكم هاسنتين داوشدينا تانية كولان كينا كنهيغا نبت قليو faa'iidooyinka adeega iibesa send money dirista lacagaha withdraw money abixidda lacagaha airtime top up ku shubashada xirmooyinka ku hadalka iibesa bay lacag bixinta ama tukaamaysiga loans and savings amaahda iyo kaydka iibesa global xawilaadaha iibesa mastercard virtual mastercard banking service adeegyada bangiga iibesa goor kasta iyo goob kasta معمي ولي هوري مو مقشي ابلكيشن كه بنانا باي هدي ادن هوري او مقل بنانا باي هو موبايل موني ابلكيشن كو سهليه ان si fudud lacag uga dirtid adigoo isticmaalaya taleefankaaga gacanta oo ma baahnid inaad xafiis booqatid waxaana inoo keentay shirkadda Tawakkal Express oo muddo ku siman 30 sano ka shaqeynayay nidaamka xawilaadda lacagaha haddaba halkee ayuu ka shaqeeyaa banaana bay waxa uu ka shaqeeyaa dalka Mareykanka waxaana lacagta uga diri kartaa adduunka oo dhan Soomaaliya iyo Kenya waxaad lacagta ku diri kartaa adeegyada moobilka gacanta sida Sad Sahal EFC Plus iyo M-Pesa Kenya waxaa sidoo kale ku diri kartaa adeega T+ bangiga Sombank iyo xawaalada Tawakkal Express haddaba ka faa'iideyso banaana bay oo ku sameysay qiimo dhibis balaadan oo ah 20% waxaana lagu adeegayaa qiimo jaban